Asalaamu calaykum. Ku soo dhowaada barnaamijka maanta waxaan ka hadlaynaa Maraykanka oo ka bilaaba tarxiilka dadka Soomaaliyeed lagu beegsanayo. Ciidamada xuduudaha Maraykanka ayaa xabsiga dhigay muwaadin Soomaali ah kadib markii uu si sharci darro ah uga soo gudbay dalka Kanada xilli maamulka madaxweyne Donald Trump uu dib u bilaabay ololaha lagu adkeynayo siyaasadda socdaalka ee dalka oo dhan. Ninkan oo lagu magacaabo Yuusuf Maxamed Cali ayaa la qabtay Khamiistii 10 Abriil meel u dhow magaalada Berlin ee gobolka Washington kadib markii uu ka soo galay xadka dhinaca koonfureed ee Zari, British Columbia, Canada. Mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa xaqiijiyay in Cali uu hore ugu lahaa dalka taariikh la xiriirta socdaal sharci darro ah iyo dembiyo kale oo ay ku jiraan kuwa la xiriira maandooriye, wuxuuna wajahayaa dacwad ku saabsan ku soo noqosho sharci darro ah kadib markii hore loo masaafuriyey, waxaana la filayaa in dib loogu celiyo Soomaaliya. Xariga Cali wuxuu ku soo beegmayaa xilli ay socdaan isbeddelo waaweyn oo ku aadan siyaasadda socdaalka, kuwaasoo hormuud ka yahay madaxweyne Donald Trump, kaasoo dib u soo celiyey siyaasadda adag ee lagula dhaqmo muhaajiriinta. Horaantii sanadkan, maamulka Trump wuxuu ballaariyay xayiraadda socdaalka isagoo ku daray in ka badan 40 dal oo ay ku jirto Soomaaliya. Waxaa kaloo ku dhawaaqay qorshe ah in la masaafuriyo ilaa 1 milyan oo muwaadiniin ah oo sharci la'aan ku jooga dalka sanadkii ugu horreeyay, taasoo dhalisay cambaareyn xooggan oo ka timid hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa dooda muhaajiriinta. Muwaadiniinta Soomaaliyeed oo intooda badan ku yimid Maraykanka ayagoo qaxooti ah ama helay magangelyo bini'aadanimo ayaa si gaar ah u saameysay siyaasadda cusub. Dib u eegista lagu sameynayo barnaamijka Temporary Protected Status iyo dib u dejinta qaxootiga ayaa sababay in boqolaal qof ay galaan xaalad sharciyeed oo aan caddayn, ayagoo cabsi laga qabo in dib loogu celiyo Soomaaliya oo ay kordhayso dal weli wajahaya dagaallo, abaaro iyo xaalado dhaqaale oo adag. Xariga Cali wuxuu sidoo kale muujinayaa kororka socdaalka sharci darrada ah ee ka socda xadka u dhexeeya Maraykanka iyo Kanada, iyadoo dad badan ay isku dayayaan inay ka leexdaan nidaamka adag ee fiisaha iyo waddooyinka sharciyeed ee magaalada Berlin oo ah meel muhiim u ah xuduudaha ah kana tirsan gobolka Pacific Northwest ayaa sanadihii ugu dambeeyay noqday meel si gaar ah isha ugu hayaan hay'adaha socdaalka. Iyadoo baaritaan la xiriira kiiska ay weli socdaan, mas'uuliyiinta socdaalka ayaa sheegay in la qaadi doono tallaabooyin degdeg ah oo lagu musaafirinayo iyadoo la adeegsanayo nidaamka tarxiilka ee degdega ah. Hogaamiyaasha bulshada iyo ururada u dooda xuquuqda muhaajiriinta ayaa ugu baaqaya dowladda Maraykanka inay bixiso taageero sharciyeed iyo dammaanad dheeraad ah si loo ilaaliyo muhaajiriinta nugul, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda dalalka ay colaaddu saameysay sida Soomaaliya, xilli siyaasadda adag ee maamulka Trump ay si weyn u saameynayso jihada socdaalka Maraykanka.